إلهي إسقى وينه حنجا أقبله عباداتك صومك صلاتي تهجدك iyo wixii aynu acmaal wanaagsan sameeyay iyo quraan akhriska Allah inaga aqbalo ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa ducada uu sheekhu inoo duceeyayna inuu inoo aqbalo ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa waanadii uu bixiyay ee danteena ahaydna inuu ilaahayna garansiiyo inta maqashaana ay raacdo waayo wixii la oran lahaa iyo wanaagoodii fi aakhiraba waa ka hadleen aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa culimada Soomaaliland maanta iyo 30 sano ka hor halka mujtamaceenu maraya diin ahaan hawsha cibaadada ilaahay ee quraan akhriska ee tartanka ee dhalinyaradeenni maanta ay u badan tahay in masaajidada inta camirta u badan tahayna ilaahay intii abaabushay oo culimadu u badan tahay iyo intii ku taageertayba ha ka abaal marin dhaqankaana aynu sii wadno intaa waxa raaca inagoo intaa soo dadaal lagu galay dadkeena dhaqankiisu inuu islaamig noqdo wari shaydaankina waa ina garab cararayaa wari dad badan baa u baahan in laga hanuuniyo waxyaalaha qadafka ay ugu horeyso waxyaalaha caafimaadka iyo aqliga iyo aqoonta badilaya in badan waynu ka hadalnaa wali wayna la socotaa waxaynu ugu badan mukhadaraadka oo noocyo walba waxaanu u baahanahay inaynu aad iyo aad arrinta ugu dhow yeelano oo dalka kala dagaalano waxaynu ugu socdaa waxa leeyahay wixii shaydaaniyad ahayd oo muddo dagaal lagu soo qaaday inay tahay nooc kasta oo mukhadaraad iyo dhaqan xumo oo dadkeena wari la garab cararayo intii ay dadaalay waalid iyo caalim iyo nin talahayo talaqabeena iyo siyaasi iyo taajir aynu isugu tagno dhalinyarada mustaqbalka inaynu arrinta ka dabargooyno oo aanay ina qabsanin dadaalka ayayna ka daalay Allah qodobka labaad waxa la isku raacsan yahay adduunka maanta in 8 bilyan ka nool baa ku nool oo qof adduunka meel walba umadu way tarmaysaa inteena halkan fadhida neewle wuxuu garanayaa 40 sano ka hor qoyskoodu qof iyo laba ahaayeen maantana waa boqolaal bay ku dhawahay qaarkood dhulku ma fido waxaynu u baahanahay aqligii iyo fikirkii la isugu tagi lahaa in dadka koraya ee badan ee soo socda aynu amal la'aanta ku hayno in wixii ay qabsan lahayn loo beerana xilku maanta kolba intii joogta ee mas'uula ay saaranti haddayna dalka wax kala soo bixin oo inaan sidan bedelina ku noolaan kara mayno laba qodob oo aynu caadaysanay mid waxa weeye mucaawino mar walba gacanta hoose aynu leedahay waxaad maqashaan bishii 2-3 jeer hay'adda maxay ahayd gurmadka kaydka qaranka ayaa beesha ama deegaanka u qaybisay intaas oo qoys oo qul sawa 30 sano ila socota bariyaasi ilaahayna wuu arkaya dad walba waynu nahay laba qodob aynu kaga bixi karnaa arrinta ta koobaad dadka wax bixinaya ama ha ahayd dibadda waxay nooga soo diraya ama kuwayna ilaahay wuxuu dhiibay wax bixinaya intaynu kolba qofka baari wuxuu cuna siinayno haddaynu kolba isku geyno sakadeena iyo sadaqadeena inaynu deegaan ama magaalo ama meel waxa aynu maal gelino oo dadku faqri kaga baxaan waynu karaynaa waxaan dadka gacanta laga saarayaa uu duleeyahay dadka aqliga ka xumaada inanka ku koray ee abi ku koray waxaan ahay IDP maxay ahayd dadkan meelaha lagu riyo bacaal loo xiray waa laga saari karayaa dhaqaalaheena sakadeena qura hadii la isu geeyo way ka saari karaysaa waanu ka saari karnaa dadkeena laakiin waa talay nagu socoto dadku inay noqdaan dad aan aqal lahayn ee gacantooda horsada waxdeeda arinta in badan baynu soo qaadnay halkan horaan uga hadlay waa xoojinaya waxay nagu haray inaynu aqliyada ka saar dadkeena baryada waxba loo qaybiyay waa run ilaahay dadka faqiir iyo ka dhigay taajir ilaahay baa saaqada u qaybiyay laakiin diinteenu markay sakada soo rogtay waxay ahayd in dadka faqriga laga saaro ما أهيد إنه ده كانوا كوارو أو يكون عشان يكون قرآن هيات باي تبت وإحنا لوكا يعني بالنسبة للوكا يبي عاجد داير يجد بدل يستور ساريو ولما ولماذا وأنت بدل سوق هذا لعنتها كتب هذا عربها يدك مسلكها وحورا إنسان إلا قرشيو إن ده فقر كبحان أنت إنه وحيصلا أنت حوج هيسان إنه تعب رقاقنه ويا ما أنت أدوك وين واركنا بس حلو ما كتشرته إلى هاي أنت أنا كم بحنا فقر ونسي حولا أن لهم بينه هينا
kalluun badoo aan lahayn baynu haynaa cadceed baynu haynaa roob baynu haynaa taa waa ku dardaarayaa in maskaxda dadka taa laga bedelo qodobka labaad maanta adduunka Soomaaliland waxaa ku jirta meelaha caalamku aad u hadlayo marka laga reebo Gaza inta kale way u hadal badantay maxaa keenay waana wada ognahay halka wada hadlayno hal su'aal baynu isweydiinaynaa Soomaali waxay ahayd 40 sano ka hor shan qaybood shanta qaybood waxay ku tashadeen in Soomaali la isu geeyo oo dawlad qura noqdaan ayaa laga siinaa oo laga wada hawlgalay inagoo qura laynaba qaybin isticmaaladii dhulka qaybsaday dawladda badan ayaa ka mid ah dad badan oo la qaybiyay baa meel uba jira hase yeeshee 40 sannadood waxay noqotay inaan la isu keeni karin shantii Soomaaliyeed oo iyaga ciidii qaybsay ka soo cid waliba danteeda u tashatay qaar dawladda kale la midoobay oo ay ku barwaaqeen waa ugu ducaynayna qaar iskood bay isu taageen oo ay ku barwaaqeen waa ugu ducaynayna haddii labadii dawladda isu taagay isqaban waayeen waxa la filayay shanta Soomaaliyeed saddexdii kala haray labadii midoobay isqabtay mooyaane bar inay gar qaadaan oo waxa la isku hayaa eegaan taasi ma dhicin waliba xaaladaha imika socda waxaad moodaa inaan wali laga garaabin oo shantii Soomaaliyeed marnaba ka heshiin waxa la isku hayaa labadii dawladood ay isu tagay isku midka ahaa ee horseedaya shanta ayaa isqaban waayay balka gardarray uga fiiqeen bar hadhow saa laga wada joogay shantii Soomaaliyeed waxay ka marxaad furilaayeen labadii dawladood isu tagay maxay hayaan bal intooda badani waxaaba eeda saaraan Soomaaliland oo la yiraahdo midnimo la diidaya midnimadii Soomaaliland halkan rag badan nool baa laga yaabaa inay nool yihiin maanta ay maqlayaan 40 sano ka hor shanta Soomaaliyeed waxa xarun ahayd oo nin waliba isagoo magageliyo doona u yimid waxaad nin taariikh la magacaabasheen oo dhan Hargeysa iyo Soomaaliland oo ahayd halkii Soomaalida laga doonayay Soomaalinimadii iyo Islaamnimadii Hargeysa sidaba u haysa laakiin waxa la doonayaa inaanay u noqonin iyadu tan lagu diro shantii Soomaaliyeed ay noqoto sidii lagu midoobi lahaa inay tahay walaalo siman oo waxayso ogol oo is ixtiraamo Soomaaliland 30 sano ay doonaysay in ay dawladeedii la soo noqoto caalamka u ixtiraafto 30 kaaba Soomaaliyeed hor taagan saddexdii raacay iyagu isu goortaagay kama marxaad furin kii ay midoobayna waa mudafiray Soomaalinimada dawladeedii laakiin حق إلهي سومالي واحد يجتمع مالته وضرتها بي ووانا سيدور الشبانته إن بدنا تاسوي هرقش مرخاتي هذا الشر يبقى قدام بيسي ومحري سومالي الآن ترى بين تعالى وسدح دولون والله سوق عاضي إلى اعتراف سيام أما هبا موسى أود ولدني وحقب سجيدة أو بدك اعترافه تيورسك جري كنا كلي واحد مالنتي أي برسكول مدحوينه يقرن بحسي وست أفريقيا يكونوش اسمه قاعدون أفريقيا بيكون هذا الشان أي حمر علاقاتكم جرت فالعداوة وراء احترامي إن الدجال فوق قاده ولا لمن كادورية برسوكي قبتير صومالي برسوكي قبتير كل حمر جوبية وكل مركز جوبية كي كل حاجة وحاها هو كينيا إسلام برا تقول مدحوينه أيو إنه أرض معي أو إنه سول ويسوى هذا الاعتراف هو قاضي علاقات كحمر جرت هذا هو أنا ولا لك احترامي وكسور دوي أو ولا لك شرف يا أمام بينك مذي تاسع على مرخاتك والله هيدا تيجي حكتي إثيوبيا سوق قاضي سؤال الاعترافنا تضربكم أو عسكري أو إثيوبيا رجعوا ما تي وشاب كلاهي علاقات كالوجه حبر تجوا وح كليه أنا الشباب كانوا لينا نقرحيا نقولوا الصومال هذا الاحترام أنا تاسع معيد ورك وأنا ورالك وأنا كيا وحبي وأنا كشرفي وأنا كان لي ولا نكر قربه علماء يا عام يو حاجة عقل جاس برسول هاي هلا إيجا صومالي ونما هنتين أركن شوفت سور سكر ما أساس وحلا قاعدة كرنا ما صدق حد يقول بقى رسول تاكتينا وري للصوماليين وصدق حد يقول بقى كذا شيء هذا ورمشة وحلا قلدن ولا كلا قرليه ما هينو حسي شيء
waxaa ilaahay inoogu marag furay shalay gini koraakari ninkii cilaaqaadka u jiray wasiir khaarijiyaha ahaa ee maalintaa cilaaqaadka u geeyey ee weliba aada faahfaahiyey eed moodisay inuu jannadii ku tagay isugu faanayo ayaa maanta leh waan ka go-ay anaa xamar oo dawlad kalaan ahay oo way qaldanayd oo waxaa la hayaaba waa khalad bal markhaatiga ka weyni waa kuwa waa isla wasiirkii shalay lahaa gini koraakari waa isla wasiirkii shalay lahaa kiiniyaati xusn walaal ictiraaf ayaa maanta miidiyaha ka taagay qallooca halkaa yaallaa meel buu ku jiraa waxaan ku soo gabagabaynayaa haddaynu Soomaaliland nahay cidna colaad uma hayno wixii dhibaato ina soo gaarayna horeynu uga saamaxay inagu waxaynu doonaynaa shanta Soomaaliyeed oo mid waliba halkiisii barwaaqo ku yahay oo walaalo waxa qabsaa iyaga oo siman oo is ixtiraamaya ay yihiin wixii taa ka hooseeya ee adigu ma tiid waxba waxaan leeyahay adiguna waxba noqon maysid kaana aqbali mayno waxaad sii abuurtaa waa colaad iyo nac iyo dhibaato sii socota taa intaasaan uga waanaya u dhaafi maayo Soomaaliland waxaa laga doonayaa meel wacan bay marayaan 30 sano aynu dhisnay oo adduunku maanta inagu ictiraafsay waxaanu qabsanay oo dalkeena nabad ka dhignay dal kasta dhexdiisa dhibaatooyin way jiraan meel wala adduunka ma dhibaatada iyo noloshu wada socdaan waxayna dhammaan 30 sano inaga xalisay dalkeena nabad baynu ku hayn wada jir baynu ku hayn waxaanu qabsanay inaga khilaaf kasto imaado inaga xalisan kaana maanta inteedu waynu ku filanahay ilaahay waxa ka rajeenayaa inaynu nabadda iyo wada jirka iyo dawladnimada dhammaanteen ka wada hawlgalno waxaynu doonaynaa dawladaan cidna dulmin oon Soomaali iyo nin kale toona wax dulmiyo oo gardarra ku sameeynin wax gardarra iyo eediyad iyo dulmiyana aanina ka qaadanin waayo taa ilaahayna uu badinba diinteenu inay farin inaynu ka qaadano sida uu culimadu ku ducaynaysana in ilaahay arsaaqada inoo ballaariyo nabadda ina siiyo horumar ina siiyo amni ina siiyo walaaltinimada ina xoojiyo wixii hawlo dhexdeena ana aynu saynu qabsan jirnay u qabsano dambigeena Allah ha dhaaf kiiwaadkan Allah ha dhaaf dalka iyo dadka iyo dunyada Allah inoo barakeeyo diinteena Allah inoo quweeyo kuwii diinta ku adkaysta inaynu noqono ilaahay hayna waafajiyo dhammaanteen wixii buka Allah ha caafiyo wixii dhibaatada Allah ka saaro wixii faqri qaba Allah ka saaro dadkeena oo cududiisa iyo xoolihiisa isku darsada oo ka baxa baryada iyo maalin walba caagada yar dadkeena hor dhigaayo waxa qabta Allah inaga yeelo